بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada casharkii lixtoonaad ee barashada MS Word casharkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa restrict editing oo loola jeedo in qoraalka in wax laga bedelo restriction lagu sameeyo ama la diido markaan isla rano qaabka loo sameeyo qoraal la soo gelinayna marka koowaad formally aan soo barnaa kusoo gelin doonaa equal run shift 9 shift 0 okay qoraalka marka sidaa uu soo galo dooranaynaa qoraalka tusaalahan qaybtan ugu horeeyaan dooranayaa kadib waxaan ku dhufanayaa review kadib waxaan kusii dhufan doonaa halkan ay qoran tahay restrict editing waxaan ku dhufto qaybtan ay soo bixi doonto waxa ugu horeeya waa format restriction number 1 tiga saaraya number 2 sidoo kale halkan everyone sidoo kale tiga saaraya kadib waxaan kusii dhufi doonaa yes start forcing protection halkan password gelin doonaa 1 2 3 isla asiga ku celinaa 1 2 3 then okay aan leeyahay hadda qaybtan hore waxaan doonaa ka bedeli karaa waxaan doonaa ka tiri karaa laakiin qaybtan intaan kale waxba lagama bedeli karo marka qaabkaas ayaa qoraalka qaar ka mid ah loo xiraa sidee marka u furi karaa stop partition ku dhufanaysaa 1 2 3 idoo okay aad leedahay hadda kulli wax baa ka bedeli kartaa okay haddii aad u baahato in laba qayb aad xirto qaybta kore iyo qaybta hoose oo kale maxaa samaynaysaa waxaa samaynaysaa labada qayb isla dooranaysaa sidee loo doortaa qaybta hore waa dooranaysaa markaad doorato control qabanaysaa haddana qaybtan waa dooranaysaa intaa markaa samayso kadib waxaa ku celinaysaa tigtiga ku celinaysaa meel kasta yes aa leedahay marka 1 2 3 aa ku xiraysaa ama password ka ratid 1 2 3 aa iska celinaya kadib okay aa leedahay hadda labadan qaybtan kore iyo qaybtan hoose waa ka bedeli kartaa laakiin qaybahan dhexe oo saddexde waxba lagama bedeli karo marka qaabkaas qoraalka qaar ka mid loo xiraa haddii aad u baahato in warqadan aad xirto ka waran waxaa samaynaysaa file ku dhufanaysaa kadib waxaa leedahay protect document kadib waxaa kusii dhufanaysaa encrypt with password halkaana marka password ku xiraysaa 1 2 3 1 2 3 then save address waa save garanaysaa halkaa ku save garan lahayd ayaad dooranaysaa then desktop waa iska save garaysanaya kadib okay aan leeyahay kadib haddii warqaddii aan raadiyo inaan soo furo aan raadiyo waa kanaa marka aan furo laba mar kale heli leeyahay then wuxuu weydiin doonaa password weydiin doonaa 1 2 3 waa kaas sidaas ay furmaysaa qaabka password uu furi karaa file aan ku laabanayaa kadib waxaan leeyahay protect document then encrypt password kadib passwordka ka tiri doonaa kadib okay aan leeyahay waan save garaynaa marka save ha hilmaamin markaa save garaysid haddana mar labaad inaan soo furno isku dayna marka password inuu weydiinaa la rabo toos u furmo waa ka caadi u furmo okay casharka intaas waaye haddana wax cusubtaan usoo dir والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته